waxa aan dhashay gugii dhiigmayd la oran jiray gugaas oo barwaaqo balliidhay ahaa jilaalkii ka horreeyey waxaa dhacday dhacdo iyo dhalamaayo doox ay xabashidu dad Soomaaliyeed oo fara badani ku gumaaday sababtaas darteed buuna gugaa dhiigmayd kula baxay aabbahay waxaa la oran jiray Samatar hooyadayna Samawada waxaana ila dhashay 6 carruur oo dhammaantood iga dhalasho horreeyay sidaas awgeed waxaa la iigu yeeri jiray guri dambays weli naaskii habartay baan nuugayay markii ay amxaaradu i agoomaysay xoolihii aabbahay geel mooye intii kale waa la dhaxlay 4 sano oo keliya ah baan guutirsaday subaxii aan geel horweyn ah la qoob qaaday oo habar ari iyo gurigeeda isaga tegay walaalkay Cali oo gaashaan qaad doob ah baa geela hormuud u ahaa ayaamihii hore walaalkay tuurta ayuu igu qaadi jiray gadaalkiisa awr cadaysima ah baan baarka qabsan jiray bogo oo madiican talax ah waa ugu yaraan maalintii 2 jeer la ii maali jiray habeenkiina mar hashaasi waxay ahayd hooyadaydii labaad ilaa iyo haddana hooy maguuraan ah bay laabteeda ku leedahay 3 sannadood oo xiriir ah waa ka soo wareegtay intii aanu howdmeerka ahayn oo aanan hooyaday maqal mooye muuqeeda il saarin oon waa balaaye maalintii dambe ayaanu geeli markii aanu 3 soo dhixinnay ceelkeennay ceelka darkiisa aniga oo taagan way ruux dumar ah oo aanan markaasi ka saynin inta ay magacaygii iigu yeedhay haw soo tiri oo dhunkasho labada daan igaga nabtay waxayna ahayd maalintii iigu horreysay ee intii aan garaad yeesho qof idhunkada waxa tin iyo cirib rooray jiriraco aanan weligay horay u dareemin hooyo miyaadan i garanayn ayay inta ay hadal iigu horreysiisay timir ay marada dacalkeeda ka soo furtay sacabka iigu riday kor markii aan u eegay waxaan arkay labadeeda indhood oo ka soo booday ilmo dareenkii qalbigayga tafayay waxa ay hilmaansiiyey macaankii timirta maxaa yeelay waxay ahayd maalintii timir dhadhaminteeda daayo araggeeda iigu horreysay geeridii aabbahay kadib walaalahay oo dhammi aniga iyo Cali mooye waxa ay yeesheen guri hooyadayna waxa xilkeedii garbaha uu ka fuulay abtigay Cilmi nasiib darro maalin maalmaha ka mid ah ayay xabashidii reeraheennii mar kale cagta marisay halkaas oo ay abtigay Cilmi iyo walaalahay mid ka mid ah qudha kaga jartay xoolaheenniina ku dhacday hooyo waxa ay kolkaas dani ka geyn weyday inay magaalo u dhugmasho aado oo nolol ka raadsato nolosha geeljiraha adeegeeda nin aanan arkin loogama sheekayn karo sidaa darteed waxay ku rabaysiisaa adkaan iyo howlkarnimo sida aan horeyba u sheegay geelu waxa uu ahaa laameer habeenba meeshii burcoos leh looga xela dhigo dhaxanta weligay hoy kama aanan gelin roobkuna nama kari jirin subaxii arooryada hore ayaannu kici jirnay habeenkiina haweyska dambe ayaannu soo hoyan jirnay caano geel oo badanaa maalintii mar aba 2 jeer afka lagu dhufto ayaa noo quud ahaa marka la guuro ama geelu arooro waxa tuurta la ii saari jiray harubgaalka iyo maqaarka maaweelada geeljiruhu waa lagdinta iyo ulatanka kolba 2 wiil baa la isu soo saaraa oo lagdama ama ul la isugu dhiibaa maalintii ugu darneed waxaynu isu baxnay jaamac oo 2 gu iga weynaa 4 jeer aanu isgalnay 3 buu dhinaca dhulka ii dhigay aniguna mar baan iska hoosaasiyey walaalkay arrintaasi ma aanay raali gelin ee intuu soo kacay buu 4 dhingadood oo dab ku kulul igu gooyay subaxaana waa la iqadiyey maalin annaga oo geedi ah oo meel hawd ah marayna ayaan geeli aniga oo miro guranaya ka haray mirihii markii aan ka qaraaray ayaan kabtii ka soo baxay oo dudun dheer inta aan koray geeli iyo dadkii bidhaan goobay hase yeeshee waxa ay dhir ahayn indhahayguma aynan qaban naxdin iyo argagax baa markiiba i taabtay dabadeedna sidii wax waalan baan dhankii geelu foolkiisa u jeeday orod isu dhigay shaaca markii uu mudoobaaday ayaan aniga oo baydaansan sanqar dabadayda ka maqlay goortii aan istaagay ayay sanqartii joogsatay hase ahaatee mar labaad kolkii aan dhaqaaqay bay misana ii baxday wuxuu inuu libaax yahay haba yaraatee shaki igama gelin naftu orod bay kugu aamintaaye cagaha inta aan miciinsaday
ayaan geed dheer dhalada oga baxay. Xagiddiiba aargooshiisa daadihinaya baa geedkii isa soo hoostaagay. Habeenkaas daal, gaajo, oon iyo lulmo inkastoo ay intuba i hayeen haddana ma dareemin. wuxuu habeenkii oo dhan i hoos galgashaba. qorraxdu markii ay big soo tiri ayuu inta uu yara dhaqaaqay kob agteeda ahayd beerka soo dhigay. geel aroor ahaa oo naga dambeeyey baa maalintaa i nabadgeliyey. 2 cisho kadibna geeleennii iyo walaalkay baan soo gaadhay. abaalgudkaygiina 10 maalmood oo ciqaab ah buu noqday. 9 jirkaygii buu walaalkay Cali guursaday. golihii geelana isaga tegey. geela xilkiisa waxaa dhabarka u ritay walaalkay Kulmiye oo ahaa nin aad u naxariis daran. Kulmiye dilmo iyo dagaal buu dheef iyo dhaqaalo iiga dhigi jiray. sidaas darteedna waxay ugu adkaatay la joogistiisa. inkasta oo aan aad geeleenna u jeclaa, lexjecladiisana igu dheerayd, haddana waxaan goostay inaan isaga tago oo hooyaday aado, mar haddii ul iyo afxumo sad ii noqdeen. inkastoo ay da'daydu 9 sano oo keliya ahayd, haddana subax keliya ah baan anigoo aan is ogayn dhaqaaqay 4 caana maar. markii aan habeen iyo maalinba fool ujeed ahaa ayaan galabtii dambe dhagax buur aniga oo hiirays ah ku soo hoyday. nasiib darro, hooyaday kulama kulmin. maxaa yeelay hooyo waa hore ayay dhagax buur isaga tagtay oo Hargeysa u guurtay. waqti iskama aana lumine ee waxa aan isla markiiba falowgeeda qabtay sidii aan Hargeysa ugu gudbi lahaa. subaxdii waxa aan halabsaday baabuur jigjiga u baxaya. maxay kula tahay haddii aan mushaar la'aan kugu shaqeeyo? ayaan wadihii baabuurka ku idhi markii nooli la i weydiiyey. muddo 3 bilood ah baan lacag la'aan ninkii ugu shaqaynayay. kadibna magaalada Tagwajaale ayaan kaga degay maalin aanu alaab u qaadnay. markiiba intaan xadbeenaadka ka tallaabay ayaan askar Soomaali ah u tagay oo inay Hargeysa ii gudbiyaan weydiistay. nasiib wanaag, howlyaraan baan hooyaday Hargeysa ugula kulmay. inkastoo ay shaqadeedu biyo dhaamiso 2 kumina maalintii ka hesha ahayd, haddana waxa ay awooday in ay hugayga iyo quudkaygaba iiga filnaato. anigana dugsi bay i geysay, halkaas oo aan wax ka baranayay ilaa aan nin shaqaysto oo isku filnaado ka noqonayay.